wafdigan ballaaran oo meesha maraya wuxuu ka soo ambabaxay oo abaabulkooda iyo ambabixintooda lahaa taladay ku soo baxeen iyo qorshahana wax ka ogaa madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi todobada wasaaradood markaan tilmaamo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka dekedaha wasiirka dowlaha waxbarashada wasiir ku-xigeenka ninkaan tilmaama gacanta haltaa wasiirka aana xusimaha wasaaradda deegaanka wasiirka dowlaha wasiir majiira asaga waa la garanayaa waa wasiirkii halkaan wasiir haddana senator oo hambaliyo mar labaad wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo waraabka wasiir ku-xigeenka amniga dowladda Puntland maariya ku-xigeenka wakaaladda horumarinta biyaha Puntland gudoomiyaha degmada Jariiban gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Jariiban agaasimaha wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada waa sheegay wafdigaas ballaaran oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda iyo federaalka waxaa kaloo la socday tiim ka mid ah boorka shirkadda wadaagsan oo aan ka bixi garowan aan ka wada soconay haatanna aan jidka soo marnay barashada markaa dhinacaas idhaahdo dhinacan madaxda sharafta halkan waxaa wada fadhiya 3 jambi kow boorka shirkadda wadaagsan ee dhismaha dekeda Garaac jambiga labaad oo ah consultantiga dhismaha dekeda Garaac shirkadda la yiraahdo Andro oo uu ka socdo Montaranto shirkadda TTN oo shirkadda dhisaysa dekeda Garaac oo Taaji Maxamed Jaala oo ka tax intaas waxaan ku soo aruurinayaa inta kale meesha fadhidana waa injineer Cali Nuur oo injineerada ka tirsan shirkadda dhismaha dekeda dhisaysa iyo golihii fulinta oo maareeyaha dekeda uu madaxu yahay Mr. Saciid tiimamkaas meesha fadhiya ayaynu u dhannahay mar labaad iyo mar saddexaad madaxda soconaysay ee dowladda Puntland ee sida sharafta iyo shaqada noogu timid waxaa leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada village-kan oo la yiraahdo village wadaagsan waxaan idinkaga mahadcelinaynaa xalay 6 saac ama 12 midnight-kii bay ka soo baxeen Garoowe ilaa xalasay u soo baxeenna iyo xilligaana shaqay ku jiraan maantayna 2 degmo degmada Jariiban iyo Damo Tawfiiq iyo tuulooyinka hoos yimaada ayay shaqadeeda wadeen mashaariic ay fureen mashaariic ay dhagax dhigeen ilaahay baan uga mahadinaynaa xilligaana waa taagan shaqayna u diyaarsan yihiin waxaan leenahay jisadiina khayr Allah ka dhigo